faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal culus oo xalay saqdi dhexe ka bilowday magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Dagaalku waxa uu dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo iyo ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland. Laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay ka dambeysay ayna tahay jamhad ay soo abaabushay Kenya. Inta la xaqiijiyay in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyootay dagaalkaas oo socday ku dhawaad 4 saacadood in ka badan. goobjoogayaalka madax bannaan dhinacyadu waxa ay sheegeen ciidanka ka socday dhanka Jubbaland ee ka soo gudbay xuduudda Mandera ee magaalada ku dhow ay subaxnimadii hore iyo saqdi dhexe ee xalayba soo galeen gudaha magaalada isla markaana ay la wareegeen goobo magaalada ka mid ah oo ay ka mid tahay halka loo yaqaan masaajidka qadiimiga ee magaalada, saldhigga magaalada iyo sidoo kale xarunta mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee ku yaala magaalada Balad Xaawo. goobjoogayaalka madax bannaan dhinacyadu waxay kaloo xaqiijiyeen in la qabtay ilaa iyo hadda qaar badan oo ka mid ah ciidankii weerarka soo qaaday, kuwaasoo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay gacanta ku hayaan. goobjoogo ku sugan magaalada ayaa nooga warramay marxaladihii u dambeeyay iyo xaaladda ka taagan magaalada isagoo xilligaasi ku sugnaa afaafka hore ee saldhigga magaalada oo ay subaxnimadii hore saaka sawirro ku galeen qaar ka tirsan ciidanka soo duulay ee magaalada xalay soo galay. xaaladda magaalada Balad Xaawo ugu dambaysa xaasan magaalada aad iyo aad bay u degan tahay, waxaana magaalada hadda tangeli ahaanteedaba gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. dagaal haka hadda ka dhacday bilowday haatan dhow ayuu soo gabagaboobay, inkastoo weli ciidamada daraawiishta Jubbaland ka tirsan oo lagu yaasay ilaa 7 askari ay sidoo kale hormuud halka hadda tanaasulka dawladda ay ku hayeen. khasaaraha dagaalkaas ka dhashay ilaa hadda maxaa laga hayaa wax wara? khasaaraha dagaalka ka dhashay ilaa hadda waxa wax wara ka haynaa isbitaalka degmada ee Khaliil Maran ay ku sugaylay 23 dhaawac oo dad ilaa 4 dhimasho ay sicida. waxa kaloo khasaaraha la sheegay in hoobiyo uu ku dhacay ciidan oo degmada Balad Xaawo dhinaceeda xuduudka jirtay xigtay, waxaana ku dhintay 5 carruur oo walaalo ah, hooyadoodna way ku dhaawacantay. adiga hadda xaggaad igala hadlaysaa? hadda waxaan kaala hadlayaa aniga argada degmada Balad Xaawo aaga stationka degmada Balad Xaawo dhow. stationka yaa gacanta ku haya? stationka hadartan argadaasha aan joogo waa stationka degmada Balad Xaawo horteeda, waxaana gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan maqlay oo saakadii hore aan weyn ciidan Jubbaland ah oo magaalada gudaheeda sawirro ku soo galay daarta hormuud aagaarkeeda joogay oo gaadiid dagaal watay. maadaama adigu aad qof goobjooga tahay, maxaad ka maqashay ciidankaasi halka ay ku dambeeyeen? ciidankaasi waa sax, waxa ayna magaalada soo galeen xalay 7:00 iyadoo xabad ka bilaabay stationka degmada Balad Xaawo, halkaas uu ku geeriyooday taliya ku-xigeenka saldhigga booliska degmada Balad Xaawo Maxamed Cabdinuur. kadibna saakay tawaabarigii salaada subax ayaa dagaal xoog leh uu qabsaday ilaa saacada subaxdii hore ayayna meeshaasi ay haysteen ciidamada daraawiishta ee Jubbaland. kadibna dagaal xoogan oo dhex maray dib baa loo riixay, meeshii saaka ay joogeenna waa laga bixiyay. marka laga reebo ilaa hadartan 8 qof ciidan lagu qiyaasay oo ilaa haatan weli ku dhex jira dabaqa shirkadda hormuud oo ilaa haatan isweer laga hayo, welina aysan ka bixin xabado kalselana meeshaas ka wada. hadda aad ila hadlaysid wax badan miyaa socota? haatan aan kula hadlayo wax badan ma socoto, laakiin deegaanka oo sheegay inay askar ku jiraan baa isweer laga hayaa. xabadihii hadda way soo afjarmeen kadib dagaal xoogan oo saakay ka dhacay. waxaa kaloo jira khasaare aad iyo aad u fara badan magaalada, waxaa ku soo dhacay hoobiyaal aad iyo aad u fara badan, waxaa gubtay guryo ganacsi sida baqaarada oo kale, waxaa kaloo ay madaafiicda ay ku dhaceen dad shicibka guryahooda. waxaa kaloo dhanka kale khasaare laga sheegaya degmada Mandera oo ayadoo ay gaareen khasaare aad iyo aad u fara badan kadib markii hoobiyaalda ciidamada dawladda ay garaacayaan ayagana ay ku dhaceen xaafado ay leeyihiin dadka rayidka ah. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in duulaankaas uu yahay mid jamhad ay soo qaaday Kenyana ay gadaal ka hubeynaysay ama ka dambeysay. kol hore waxaan caddaynay in Kenya ay doonayso in Balad Xaawo ka hor doorashada 8 February loo qorshaysnaa in la qabto laguna celiyo gacanta Jubbaland. dad badan ayaana xilligaasi muujinaya walwalka laga qabi karo howlgal military oo Kenya ay qayb ka tahay. Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isku haya xaaladda gobolka Gedo, waxaana ay qayb ka tahay caqabadaha waaweyn ee hadda hor yaala arrimaha doorashooyinka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada qaarkood u dhaxaysa.